madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo maalmoon howlo shaqo rooga magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo ku qayb galay shiran dhexe golaha wada tashiga qaran iyo wafdi heer sare oo ku socday qaramada midoobay oo yahay hogaamiyaasi ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay marwo aamina janne mohamed kulanka uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble aalada fogaan aragga iyo ku qayb galay madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Hirshabelle iyo Jubbaland antii uu socday may hayay kulanku hadalay arrimo horumarinta bulshada xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya dhameystirka doorashooyinka dalka awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka iyo si ambaqaado howlgallada la kicirib tiro argagixisada al-shabaab iyo sidii la dardar geliyay howlo hortawinta in la shacabka Soomaaliyeed ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay marwo aamina iyo golaha wada tashiga oo kuma hadnagtay dadaalkii oo ka bixiyayaan sidii dalkeen ku qabsooma lahayd doorasho wada ogol ee madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Puntland ka amaantay dhameystirka xubno aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo soo wada jireenka mahadnaqay taageerada qaramada midoobay ee si hay'adda Soomaaliya dhaniyada hirgelinta mashaariicda xoojinta amniga arrimo bini'aadanimada iyo kaalinta mugtale ee ku qaadaday qaramada midoobay qabsoomowga doorashada dalka Maxamed Ali Ibrahim Bandhabow agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed iyo kulanka kureed warbaahinta dowladda ku warbi walyaabay madaxda iyo diiradda ka saareen wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo magaalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha uu kaga qayb galay shir u dhaxeeyay madaxda golaha wada tashiga qaran iyo wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay marwo aamina janne mohamed ay qayb ka ahaayeen sidoo kale xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr James Swam kulanka oo igu dhaxeeyay madaxda golaha wada tashiga iyo wafdiga waxaa looga hadlayay xiriirka wada shaqeyneed ee Soomaaliya guud ahaan beesha caalamka iyo sidoo kale waxaa laga wada hadlayay dardargelinta doorashooyinka guud ahaan ka jira Soomaaliya iyo sidii loo dhameystiri lahaa doorashooyinka ka dhiman doorashooyinka aqalka sare iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa bilaawitaanka doorashooyinka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulanka uu shirkidoonka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxaa qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka sida madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sidoo kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaaw Xuseen sidoo kale waxaa qayb ka ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoowe madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka qayb galay shirka golaha wada tashiga qaran uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulanka oo ahaa kulan looga hadlayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo sidaad ogtihiin doorashooyinka aqalka sare ee deegaanada Puntland iyo sidaad ogtihiin doorashooyinka aqalka sare ee deegaanada koonfur galbeed iyo Puntland ay dhameystireen xubnihii looga baahnaa xubnaha kala dhimanna la sugayo todobaadyada soo socda in uu ka dhamaado dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa madaxda ay isku afkarteen in la dardargeliyo jadwalka doorashooyinka oo aqalka hoose si doorashadana si xor iyo xalaal ay u dhacdo maasintiin oo bilaa tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo shir gudoomiye iyo ku qayb galan golaha wada tashiga qaran ee lanku aransaday arrimo doorashooyinka dalka iyo sidii la dardar geliyay lahay ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Jubbaland la dardaarmi antiyo dardargeliyaan dhameystirka xubno aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya salam bilaawa doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Muqdisho